macquuliyihiina meeshan waxba lacagtiina ha shubin allah annaga dadkii shubahan ka mid ahayn marka aniga xanaaqna hadda uma jiro wixii ilaahay ii soo qoran buwaynay laakiin cadaaladda aa lagu tagrafalay dulmigaana ilaahay dad ka soo bixinayo waana arki doontaa meeshan nina loo igmaday inuu maxaa la lahaayay hawshan uu qabto doorashooyinkan uu qabto waa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waay hadduusan kale maxaa la lahaayay arrintan uusan joojinin wadankan wixii ka dhaca mas'uuliyadeeda asaga qaadanaya wadankan inuu badbaadiyaa laga rabaa tan kale ee leeyahay dawladda dhexe gacanay ku leedahay ama lugay ku leedahay doorashooyinka hadda socda adiga ma ku muuqdaan ma muuqdaan dawlad goboleedyada haddii aan la yiraahdo dawlad goboleedyada ayaa lug ku leh waa suurtagal sababtoo awoodda iyaga wadanka loo horseedoyaa in maxaa la dhahay af shantii sano hadda wax haba yaraatee la soo qabtay aan soo qabanin male amnigan wax laga qabanin waxaa la dhaafi waayey meeshii oo dawladdii hore ay joogtay aa la dhaafi waayey maalin walba waxa dhacay qaraxyada laga helo aan diiradda ku saari doono doorashooyinka aqalka hoose ee ka bilowday qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka waxaan eegi doonaa walaaca hareeyey ee doorashooyinkaasi iyo weliba sida loo arko sidoo kale waxaan eegi doonaa saamaynta doorashooyinkan hadda socda ay ku yeelan karaan mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya suurtagal ma tahay in doorashooyinkaasi hadda bilowday ay qalalaaso siyaasadeed dalka ay u horseedaan maxaase lagu tilmaami karaa go'aanada isdaba joogga ee ka soo baxaya midowga musharaxiinta iyo kuwa kale ayaad caawa kaga bogan doontaan oo aan ku falanqeyn doonaa barnaamijka falanqeynta siyaasadda waxaana marti inoogu ah xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale waxaa martida ka mid ah xildhibaan Idris Cabdi Dhakhtar oo isna ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya barnaamijka sidoo kale waxaa ka qayb galaya professor Shaafici Yuusuf Cumar oo ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha siyaasadda isla markaasna ka faalooda arrimaha diblomaasiyadda dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka falanqeynta siyaasadda wahagaag daawadayaasheenna ayaan sidoo kale haddii waqti aan u helno fursad u siin doonaa inay aragtidooda ay halkan ka soo dhiibtaan isla markaasna ay aaladda facebooka ay aragtidooda barnaamijka caawa ay ku soo dhiibtaan falanqeynta siyaasadda oo aan ku eegi doono guud ahaan doorashooyinka dalka waxaan rajaynayaa barnaamijkan martida kala duwan ka qayb galaysa in waxyaabo badan oo doorashooyinka la xiriira inaad ka faa'iidi doontaan isla markaasna dadku ay macluumaad badan ay ka heli doonaan barnaamijka xildhibaan daahir amiin jeeso ayaan ku bilaabaya marka hore dabcan dhowaan waxaa soo gabagaboobay doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya 54 xubnood ayaa la soo dhameeyay waxaa hadda bilowday doorashadii aqalka hoose laba maamul goboleed ayaa lagu bilaabay aan raadey 3 maamul goboleed oo Soomaaliland ay ku jirto sidoo kalena koonfur galbeed iyo galmudugna way ka bilowdeen sida ay hadda ku bilowdeen doorashooyinkaasi sida u aragtaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آد بعض ما صدق قيس مرتقات كانوا مرتقاتين استوديو جين وادين كان بلينا يا runtii doorashada inay bilaabato waa wax waajib ah oo dalka muxuu ahay in afartii sanaba uu doorasho galo loo baahan yahay waaye waan u hambaleynayaa dowlad goboleedyadii soo saaray aqalka sare 54 hadda kuwii bilaabay muxuu ahay golaha shacabka bilaabay iyo dhowr iyo 20 xildhibaan ka bilaabay hadda waan u hambaleynayaa inay muxuu ahay dhammaystiraan oo arrintaas weliba lagu dhiirado la dedejiyana waan soo jeedinayaa waayo dalkeenu xal waxaa u ah inay doorasho ka dhacdo dabcan hadda sida muuqata walaac badan doorashadii hareeyay saad ogtahayba marka aqalka sare laga soo tago oo dabcan ilaa 54 xubnood la soo doortay aqalka hoose hadda maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo maamulka galmudug doorashadii ka bilaabatay waxa la leeyahay meesha boob badan ka dhacay oo walaac badan arrintaas laga muujinayo arrintaas adiga ma ku muuqataa walaalow dhowr kursi oo laga hadlay ra'iisul wasaaraha iyo ay ka hadleen guddiga fiid waan maqlaayay laakiin haddana
waxaasoo dhan waa ka taxadirnay waxaa la sameeyey guddi la yidhaha guddiga khilaafaadka wixii muxuu ahay in muxuu ahay laiska buuqo xal ma noqonayse waxaa xal ah wixii muxuu ahay qalad oo la tabanayo in muxuu ahay loo geeyo la geeyo muxuu ahay guddiga khilaafaadka loo gudbisto dacwo si sharciga lagu geysto sida uga habboon aniga taasay ila tahay laakiin haddee wax kasta oo la samaynayo boqolkiiba boqol ciddii rajaynaysa hadda waddankeena oo maanta doorashadiisa ay tahay doorasho dadban boqolkiiba boqol inay wax ay hagaagsan ay soo baxaan ama boqolkiiba boqol wanaag ay wada muuqdaan ciddii rajaynaysa waxaan maraynaa dalkan cid ka warqabta inayna ahayn sababtoo ah doorashadu doorasho dastuur loo raacayo ma doorasho warqado iyo heshiisyo la gaari loo raacayo mar haddii aanan dastuur loo raacaynin ee fikir lagu heshiiyey iyo igmasho loo igmaday dowlad goboleedyada inay qabtaan doorashada haddii mar waxaas wax ku salaysan ay yihiin waxaa weeye waxaa habboon in las aamino oo muxuu ahaay qofka shaqada uu haayana lagu saacido inta guddiga xalinta khilaafaadka loo gudbinba xildhibaano qaarkood oo musharaxiina loo diiday warqadda musharaxnimada loo diiday soo lama dhihi karo marka doorashada dadka meesha ay ku tilmaamayaan ee ah leeyahay doorasho boob waaye oo maamul goboleedyada gaar ahaan madaxda maamul goboleedyada in iyagu ay si gooniya kuraasta qaarkood ay u xirteen taasoo lama dhihi karo intaan loo gudbin guddiga khilaafaadka ku adkaadayso laba arrinaa qays oo jirta oo xildhibaanka ama muxuu ahay musharaxa isku wayn karo muxuu ahay doorashada isku wayn karo oo xataa anigadan tan daahir ah anoo sharaxan aan ku wayn karaa jirta waxaa ka mid ah horta markuu horeysa doorasho dadban waaye dalkeena 4.5 waaye waxaa suurtagal ah waxaa la doortay qoondo gabaraa jirta waxaa jirta oo kale muxuu ahay aqalka saraa jira haddii aqalka sare oo jifideyda ay qaadato anoo musharaxa meeshaan ka baxa markee 4.5 aa sheegay haddii muxuu ahay qoondo gabar ay igu soo aado haddana kursigeyga meeshuu ka baxo qaarkood qoondo ma aha hadda tusaale xildhibaan jawaari oo kale gudoomiyihii hore baarlamaanka qoondo ma ahayn qof kale la tartamayay waxa uu sheegay in loo diiday warqadii musharaxnimada wallahi taas waxaa la rabaa in la weydiiyo guddigii muxuu ahay qabanaya ayaa la rabaa kursigaas kuraasta afarta oo buuqa uu ka dhashay kamid tahay waxaa loo baahan yahay in muxuu ahay kuraastaas siday tahay loo abbaaro xildhibaan daar jeeso waa kugu soo laaban doonaa idriis dhakhtaran siinaa waa maqlaysa dabcan dooda xildhibaan jeeso uu kaga hadlayey daahfurnaanta doorashada waxuu leeyahay doorashada nidaama loo sameeyey doorashadan waa doorasho dadban iyadaaba dadbanba doorashadan waana sababta keenaysa in luqluqyo badan waxaan ay ka yimaadaan wuxuu leeyahay haddii cabasho jirto waa in guddiga doorashada xalinta khilaafaadka loo gudbiyaa dabcan adigana waxaad ka mid ahayd dadkii musharaxiinta ahaa ee dhowaan baydhabo ka soo laabtay oo sheegayna isagoo isdiiwaangeliyey in xitaa loo diiday in warqaddii la siiyey sidee u aragtaa doorashada baarlamaanka ay hadda bilaabatay ugu horeyn haddii aad ku hormarto horta haddaan isbarbar dhigno 2016 iyo hadda 2021 2016 waxaa way nidaamaa jiray kow doorashada marka la galaayo gabdhaha ugu horeeyay qoondadooda hadday gabar ku guulaysato markaas qabiilka ay matalayso ragga markaa ma soo hawaysan jirin ka hor waxaa jiray ergooyinka la xareynayo nidaam oo wax saxa jiray oo lagu heshiiyey odayaasha ay arintaas iyo ergooyinkii iyo si sax loo diyaarinayo hadda waxaa jiro 2021dan aniga musharaxa ahaa kursigeyga anaa ku fadhiyay markii hore haween kuma fadhinin gabdhihii la rabay kuraasta in loo hormarsiiyo la tartansiiyo ma la samaynin waxa waaye kuraastii waxaa laga dhigay open qof walba uu meel u tartami karo marka aniga waxaan u tagay aniga waxaan u tagay guddiga doorashada markaan u tagay nidaamkii iyo processkii iyo 8 qodob ay soo sheegeen inaan soo buuxiyo 8 qodob aan soo buuxiyey hab raaciyaan raacay lacagtii aan shubay
certificate kan geey oo maxaa la dhahay dugsiga sare baasaboorkii nidaamkiisaa raacay waxaa la dhahay berito noo imaw shahaadadii aan ku siinaynaa shuruudihii dhan completely formkii waa buuxisaa la dhahay subaxii markaan u tegey aniga keligay maaha dad badanaa meesha tegey macnaha markaan tegey waxaa la yidhi nin oo adi shahaado kuuma hayno sababta maxay tahay waay ninka guddoomiyaha meesha ka ah waa saaxiibkeyd inaan aad isu naqaano saaxiibna isku xaafad aan nahay waa guddoomiyaha guddiga doorashada si farankli aan kugu sheegaa wuxuu dhahay nin kursigaagii adiga maxaa la leeyahay waa lagu diiday yaa i diidi waay wallaahi meel walba lagaa diiday xataa dowladda dhexe meeshaan liisaan haysanaa u dhahay waa nin dhan guddoomiye guddiga doorashada loo igmaday inuu si cadaalada u dhaartay loo dhaariyey waay aniga haddaan saaxiib nahay aad si xaqiiqi wax igu sheegtid dhegeyso waxaan kugu sheegaa si xaqiiqi haddaad wax igu sheegtid oo saaxiibnimo ay igu sheegtid ya oo qaladna ay tahay maxaa la hadalkaas aniga isoo gaarsiinaysa arrintaas adiga loo qaateen ma tahay isleeda warkaas aniga waa ha nin saaxiibkaygii oo hadalkaas ay dhahay waa qaatay aniga shahaadadii waa lagu diiday walaal adiga keligaa maaha jawaarina waa loo diiday waay aniga waa soo baxay aniga waxaan shubtay sirt waa aragtaa u malaynaa 11,000 lacagaan shubay waa 10,000 oo diiwaangelinta ah 750 oo maxaa la leeyahay arrintii CID da ahayd iyo 250 oo ah lacag isla CID da lagu bixinayo degmada la ilaahay waa 11,000 lacagaan shubay jawaari saasoo kale 11,000 shubay waraaqdii shahaadadiina oo aan ku gali lahayn tartanka musharaxnimadan waa noo diiday waxaan u tagay guddiga khilaafaadka gudoomiye ku-xigeenka arkay guddiga khilaafaadka hotel wuxuu degan yahay guurow lahaay asagii aan u sheegay arrintii wuxuu yidhi 3,000 iska soo shubo war waxaan dhahay haddaan 3,000 hadda soo shubo maxaa la maalin laweyd baa xuseen carab ciise lacagu shubeen sidii loo lahaa waxbaa ka qabanaysaan haddana arrintii horaa loo soconaya aan dhahdeene ninkii ma xaal marinin arrintiis waxba kama qabanin haddii haddana 3,000 iga sii baxdo soo dhibaato maahan dhahay markaas wuxuu yidhi yaalkada haddaadan shuruudaha soo buuxinin war tii hore aan buuxiyaan wax ku waayay tan haddaan hadda kugu daro ma damaano qaadaysaa inaad maxaa la leeyahay lacagtaas ay soo celin doonto horta meesha waxa ka socda waxa waaye liisa yaalo loogu talagalay oo la geeyay dawladda dhexe ay geysay meesha ninka mas'uulka maxamed cabdullaahi farmaajo liiskaas in dawladda dhexe ay geyso oo halkaas inta annaga aanan bixin ka hor aaba la sheegay hebel adiga waxa ku bedelay hebel waxa ku bedelay hebel dadka musharaxiinta ah qaar war suuqeed miyaa wax rasmi ah hayna oo maartay waxaan gacanta ku hayso aan la wadaagi kartaa ha waa hayaa aniga markaan lacagta shubay shirkadda aan ku shubay agtayda waxaa joogay oo hortayda lacag ku shubay 9 qof shubay nin xukuumaddan ku jira dawladda dhexe oo wasiir ku xigeen arrimaha gudaha nin weyn ahaan baan ma sheegay waxa waaye aadan cabdinaasir allah hortaydu lacag 9 qof ugu shubay tan kale waxaan ku sheegaa hal qof oo dadka tartamayo labada qof tartamaysa ama ha saddex ahaadaan ama malxiis ahaaba oo shahaado qaatay ma jiro foomka loo buuxiyay halka qof oo la rabo shahaadada qaadanaya ka soo tag doorasho waa ogeen ilaa subaxii u bilaawato mudday qaadanaysaa 45 daqiiqay qaadanaya TV-ga hal mar wax laga soo daynaa TV-gii haddana waxa la leeyahay cilada gashay waxa maqlaysaa daqiiqad ka bacdi hambaliyo la soo diray ka soo tagtaas qof walbaba wuxuu wataa nin kala rabo qof wuxuu soo watay darawalkiisa qof naagtii jaariyada guriga u joogtay soo wadatay qof wuxuu soo watay maxaa la leeyahay qof aan waxba sharuuf fiiri hadii hadda la baaro foomka dadka musharaxiinta wallaahi kuma jiraan dad shahaado dugsiga xataa haysto waa loo buuxiyay shahaado dugsiga uu qabaa waay annaga fiiri shahaado dugsiga dhageyso shuruuda yaala ma had waxaan leeyahay dabagal hal la sameeyo maya aniga fiiri dhageyso fiiri adiga hay u cadaadinin aniga shuruuc soo ma jirto adiga farmaajo difaacaysa maya guddiga doorashada war meeshan nina war fiiri meeshan nina la wata ninkaana macnaha dadkan lacagtooda dhan wada shubay waa sidii maxaa la leeyahay aqalka sare 8 anaga 8 qof lacag ka soo baxay 8 qof kulli lacagtooda waa la shubay nin lacag waxaan ogeyn anaga xildhibaan lacagtiisa iska bixinaya processka raacay laakiin xildhibaan lacag laga shubay xataa qaar waxaa jiray 25 bishooda diyaarad miya 24 ay helaan umaleynaa oo diyaaradda soo saar foomkooda hore la buuxiyaa jiro marka meesha doorasho kama socotee nina la rabaa in loogu shubo ninkaasaana lacagta bixinooy marka waxaan leeyahay ninkan hadda mas'uuliyadda qaaday ra'iisul wasaaraha oo maxaa la arkooy wax dhacay oo xaqiiqda ah waxa waaye inuu joojiyo waay guddigaana kala diro siid iyo fiidkan iyo guddigan khilaafaadka la dhahay waxaa samaystay ayaga shaqeynayba ninka aniga idhe
oo yiri maxaa la leeyahay niyo adii jawaari dawladda dhexe waraaq noo timid labadaas qof laga yani shahaado la siinin ninka afgiisa ugu dhahay ani ninkaas maxkamad saaraa iyo ninka kale oo lacagta shubay oo xataa la soo fadhiisan kara ninku u shubay aan naqaano shirkadu ku shubay aan naqaano waa la weydiin karaa idris doctor waa maasantahay waa kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa professor shaafici yuusuf cumar doodda waa dhegaysanaysa dabcan xildhibaan jesow iyo weliba idris doctor siyaabo kala duwana looga hadlay in nidaam iyo sharci uu jiru sheegay idris dabcan jesow xildhibaan jesow sidoo kalena idris doctor wuxuu sheegay in meesha waxa ka jira aysan doorasho ahayn ay boob cad ay tahay isla markaasna ay mudan tahay doorashada in dib loogu celiyo doodooda markaa dhegaysatay iyo waa la socotaa doorashada dalka hadda siday ku bilaabatay laba maalmood goboleed ayaa hadda dabcan eed ugu badan ay ku dhacaysaa waa galmudug iyo weliba koonfur galbeed sidee u aragtaa doorashada siday ku bilaabatay mahadsanid shacabka Soomaaliyeed salaamaya horta nasiib darro waa dhibka Afrika haysta oo naga reebay caalamka anagoo khayraadka naga iyo raw materialka ugu badannahay way iska caddahay inuu musuq doorasho jiro waxa daliil u ah oo shacabku qancinaya warbixintii ugu dambeysay musuq buu dhalaa warbixintii ugu dambeysay oo wasiirkii sheegay hanti dhowrka uu sheegay inuu jiro musuq inuu jiray kaalmada caalamka dakhliga gudaha iyo dibadda marka taasina marka waxay cadeen u tahay labadan maamul oo hadda aad sheegtay musuq ka jira waayo koonfur galbeed say ku imaado waan ogeen waxa la filayay inuu noqdo good law kale uu la yimaado oo legacy kale sidoo kale qorqor sidoo ku yimaado waan ogeen marka shacabka marka shakhsi ahaan markaan eego markii la weydiiyay waxaan ka daaya waxa ay isku haleynayaan oo proof ka dhiganayaan si kastoo qofku muxaafid iyo mucaarad u yahay waxaan waa dalkanaga waa mustaqbalkii dalka haddii hadda la boobay horaa loo boobay marka haddii kuwii hore laftooda ay dhaxal ka tagi lahaayeen 2016 waxaan ma dhaceen ayaguna ma noqonayso sunna xasana wax wanaagsan baa lagu daydaa maan wax lagu madaydo marka anu shakhsi ahaan waxaan qabaa inuu meesha musuq balaaran ka jiro ay dadku niqaab xidhnaayeen manxiis la watay sida uu sheegay shacabka Soomaaliyeed ay qirayaan marka macnuhu ma noqonayso kuwan qaylinay laftooda kuwan ay ka fiican yihiin laana hadii dadka Soomaaliyeed way isku daydaan qofkan wuxuu ka tago daydaa hadii 2016 wax fiican laga tagi lahaa haddana waxa imaan lahayd in doorashadan dadban inkastoo ay dadban tahay haddana wax u yara dhow cadaaladii hufnaan in la helo waayo maxaan saa u leeyahay qofka hogaanka wanaagsan wax lagu yaqaan horta inuu dadka wajaho shacabka hor imaado waayo wax badan baa laga doonayay muusan qancin shacabku ma aysan qayliyeen number 2 waxa la rabaa markay doorasho markay jirto inay hufnaan jirto marka waxa arkaa inuu muusuq jiray way arinta waxa soo qaaday doorashadii 2016 dalka ka dhacday iyo waliba doorashadan maxay ku kala duwan is leedahay dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin labada doorasho inay isku mid yihiin habkii hore loo maray dadkii maanta qaylinayana ay yihiin dadkii 2016kii u orleynay doorashadii dhacday kuwa maanta taageerayna laga yaabo in iyaguna ay ka soo horjeestaan doorashada kale ee soo socota markaad isbarbarri ku sameeyso labada doorasho maxay kala duwan is leedahay waa doorasho dadban iyo mid kale oo dadban waana la awooday in doorasho la gaadho hal qof hal cod lana waqti badan baan haysanay marka ma dhahayo madaxdii kuwa kale ayaa ka fiican oo mucaarad ha noqdo ama wuxuu doon ha noqdo ma dhahayo lana wax weeyaan waa isku mid taana waa la boobay tana waa la boobay laakiin shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa si kastoo qofku u boobo qofka waad soo saari kartaa laakiin kuma codeyn karo boobka muxuu yahay marka caday dadku boobka aad sheegay qof aqoonyahana tahay si dadku u fahmaan boobka aad ka hadashay ee doorashada muxuu yahay anigu طبعا xildhibaannimo uma socdo waa warkaygu waa cad yahay waxa weeyaan boobku inaad qof soo saarato isagoo sii socda la og yahay inuu soo baxayo oo lacag ku bixiso kama hadlayo inuu xildhibaan qaran inuu sheegay kama hadlayo anagu wax baanu aragnaa wixii yani in aad xoog ku soo saarato qof kalena u diido aad justification u raadiso weeyaan in la boobo طبعا maxaa looga hadlayaa maxaan awood u saareynaa wax kale oo ka weyn baa la sameeyay xanibaad ganacsi baa la sameeyay khaladaad baa la sameeyay maxaan awood u saareynaa waayo waxa ka dhasha musuqa doorashada waxa ka dhalata dawlad tayalaana midda kale hadalka waxa ku jiray ayagu laftooda kuwan musharaxiinta badankooda oo waliba kuwii saddexda dawladood umba hadda qaylinayay markii ayaga xildhibaankooda la soo saara way farxayaan marka xildhibaan kale okay arrinta ka doona xildhibaan Daarmin Jason ku laabana waa maqlaysay dooda saaxiibka Idris Dhakhtar waa dhageysanaysay waxyaabo badan oo dabcan hadii
siduu u sheegay iyo xaqiiqo yihiinna la dhihi karo waa boob cad doorashada Soomaaliya la dhihi karaa hadduu siduu u sheegay inkastoo aan annaga caddeyn rasmi aan u haynin hadalkaas liisu sheegay in ay xukuumadda dhexe ama ay raahday dawladda dhexe ee Soomaaliya ay gudbisay maamul goboleedka qaarkood gudbisay oo la leeyahay hebel iyo soo saar adiga hadda musharaxa tahay waa tartamaysaa liiskaas weli ma ku soo gaaray ma maqashay ma laga yaabaa inay naftirkaada adiga ay ku jirto maadaama dadka taageerayaasha nabad in lagu tariyo waa mahadsan tahay horta dalkan hadda xisbiye ma gaarin oo in xisbiye loo dirtamo hebel groupkaas ka tirsan yahay iyo ninkan iyo aniga labadaynaba dawladda hadda maanta jirta inta ugu badan waa taageereen saaxiibkay Idris Dakhtar ma taageeray hal mar laakiin bana ii sheegay wiligayga qaladaadkooda sheegay aad iyo dadku isugusiya waxay ku fiican yihiin mar waa sheegay laakiin waxaan ku sheegay wixii recording waa yeelaan wixii ficil markii hadda dawladda laga yaabo inaad dhankeeda aad cadaadis kala kulto laga yaabo inaad mucaaraday ma wixii recording qofka ficilada uu sameeyaa recording noqon kara Idris iyo anaga dadka hadlaan ahayn waa rekoorka dib loo raaci karaa shacabka u hadlaynayo dawladda u hadlaynayo marka waxaan rabaa marka ugu horeyso waxaan ka codsanayaa saaxiibkay Idris oo kale oo hadda ma ogtahay kuleylkii xogo uu ku dambeeyay in stuudiyaha aad ku martiqaadiin waxay ahayd odayga inuu soo nasto markuu soo nasto kadib aad martiqaadiinayd hadda waxaan soo galay oo yiri stuudiyaha oo goobjoog hadda anagu nala jooga intina hadalladii isku mid un bay noqonayeen cabashada uu qabaana waa cabasho oo runtii anigu ma dhahay muxuu cabasho u qabaa dhihi maayo waxaa fiican laakiin in qarankeena loo turo oo la fiiriyo waxa socdo tan kale qofaan maanta kula fadhin oo halkaan joogo oo aan halkaan joogin inaad magacaawdid xogaa academic ma noqonayso oo aad tiraahdo qofkaas warkaas yiri liisa qornaas yiri hebel qofka hadda nalama joogo oo qadkana ma soo gelin kartid oo ma wareysan karo oo ma wareysan karo ma dhihi karno Idris Dakhtar soo xildhibaankii sharafta lahaa ee qiimaha badnay soo kuma aanan dhihin liisa qoran mana ku jirtid saaxiib soo ma aanan dhihin ma dhihi karno doodana nagala ma qiim geli karo marka arrimaha noocaas oo kala in muxuu ahay saxaafad ahaan la ilaaliyo ayaa fiican waxaana keenaya walaalkay xildhibaankayga anoo respect gareynayo kuleylkiyaa weli ku dambeeyay lacagaa ka baxday taydaan gudagalaa marka tayda waxaa waaye doorashadan waa doorasho dadban horeyaan idinku sheegay horena waxbaa u dhacay ilaa 2012 iyo halkaan hadda aan joogno maalinba sibay ahayd xilligii Sheekh Shariif dad badan ayaa dood qabay oo laga reebay lahaa xilligii 2016 dad badan ayaa iyagoo masaajidda ku jiray yiri afkooda noogu sheegay anagoo masaajid ku jirnay doorasho dhacday hadda xilligan dad cabasho qabo marka intaan ka soo tagno waxa soo dhow faceka dawladnimo idoon lagu ciyaarayn waxaa la rabaa in dalkan loo turo dhibaatadan waxaa keenaya waxaa weeye doorashooyinkan dadban ilaa 2000 aan ku soo jirno waxa dhibaatada keenaya aan isku dayno annagoo dalkeena u turayni inaan ka baxno doorasho dadban oo doorasho toos aadno anigu wiligay dadka taageersanaanahay hadda Idris iyo aniga iyo dadkii taageersanay waxaan ahayn in doorasho toos la aado oo muddo 2 sano gudahood in lagu aado oo la soo dhameeyo marka waxa dhibaatada jirta waxa weeye waa waxa keenay doorashada dadban hadda doorashadii hore doorashadan way ka adagtay doorashadii 2016 tana adag sababta maxay tahay doorashadii 2016 dawlad goboleedyada awoodda hadda ay haystaan ma lahayn hadda awoodda ugu badan waxaa leh dawlad goboleedyada annagoo respect gareynayno dawlad goboleedyadeenna xilligaas dawladda federaalka iyo guddiga ayaa awood lahay
hadda waxaa la yidhi odayaasha dhaqanka waxaa keenaya dowlad goboleedyada, nabadoonnada waxaa keenaya dowlad goboleedyada, civil society-ga waxaa keenaya nabadoonnada. intaa markay ay dhacdo guddigii argada waxaa soo xulaayo raggii ay keeneen dowlad goboleedyada oo nabadoonnada ahaa ayaa soo xulaayo. marka awoodda ugu badan waxaa iskale dowlad goboleedyada xilligaasna awood hal 135 ayaa soo qoraysay. argada inta nabadoonka uu soo qorto 135 uu soo gudbiyo 135 tiimbareeyo ayuu diri jiray. marka wixii hoosaa loo daadejiyey, shacab weyniyaa la gaarsiiyey in nabadoonnada oo beelaha waxaa laga yaabaa 10 nabadoon 20 nabadoon inay leeyihiin halka jifiyo halka kursi wada leh, 3 kursi oo nabadoonnaa inay iska soo xulaan gareed kasta oo ay ku soo xulaan iyo muxuu ahaay qaab kasta oo ay iskala reebaan. civil society-ga laga soo xulo waxaad moodaa mastowihii waagaas in hoos loo dejiyey awoodda la siiyey dowlad goboleedyada ay siisay naftirkeeda dowlad goboleed in awood la siiyo soomaahan khalad qaladka aniga iyo fiir qaladka awoodda lagu siiyey madax fiir dowladda federaalka fiir qaysow dowladda federaalka doorasho hal qof iyo hal cod ahay rabtay. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliim Yare intay soo hor istaagtay tira waqtigaasaan doorasho ku qaban karaa. hadda waqtigi waa la soo dhaafay oo Xaliim Yare maalinta inoo qabatay. fiir dowladda federaalka awood ay haysan karto iskama wareejiseen, daadejin awoodda hoos loo daadejinayo ayaan muxuu ahaay aan u qaadan karnaa. dowlad goboleedyadii awoodda la sii fiir dowlad goboleedyadii awoodda la sii dowlad goboleedyadii way sii bilaariyeen, 2 meel ay kala dhigeen meeshii hal meel ay ahaan jirtay. marka laga soo tago maamul goboleedyada sida aad sheegtay madaxdooda awoodda la siiyey ee aynay wax walba ayaga ay lugta ku lahaadaan, tan kale ee la leeyahay dowladda dhexe gacanay ku leedahay ama lugay ku leedahay doorashooyinka hadda socda, adiga ma ku muuqdaa? ma muuqdaan. dowlad goboleedyada haddii aan la yidhaahdo dowlad goboleedyada ayaa lug ku leh waa suurtagal, sababtoo awoodda iigaa haysto muxuu ahay maamulka iigaa haysto inay muxuu ahay xildhibaanka iyaga ay jecel yihiin ama ay muxuu ahay ay u arkaan in dowlad goboleedka matala xildhibaanka wuxuu matalayaa dowlad goboleed, aniga deegaan doorashaan matalayaa markii aan soo baxo deegaan doorashadaas in qof ninkan mas-uulka uu la jecel yahay qof matali karo inuu soo saaro in muxuu ahay uu fiirinayo capability-ga xildhibaanka soo baxay quality-giisa uu fiirinayo suurtagal wa laakiin siduu doono uguma takrifali karo odayaasha argada markay soo xulaan kadib qabiilkii ayaa haddana sii qaadanaya awoodda waxaa iskale dadkii aan u igman yaa waaye guddigii madaxa bannaanaa ee laisku darsaday dowlad goboleedyadaa keensaday qaar dowladda federaalka keensaday guddi madax bannaanaan ku tilmaanay madax banaanidooda inaan ilaalino waa kow korjoogtada iyo awoodda kontaktiga waxaa iskale iyo la shaqaynta waxaa iskale dowlad goboleedyada. marka dowladdan federaalka ah oo balaayo isiga riix ah oo wax walba iyada lagu riixaayo waxaas maxay ku yeelan kartaa? madaxweyne waa kaas buurta isiga xareysan yahay joo ijaama leh, ra-iisul wasaarihii waa kan goob jooga bas waaye oo muxuu ahay waa un muxuu ahay design-ka ayuu u saxaa oo tilmaamo u bixiyaa bas shaqada waxaa wada guddiyadii maxay yihiin raggan dowladda taageerayaasha ah ee hadda xildhibaanada ku soo baxay حتى قفك مواد وقبيلكيس انت وكسوبح مال الديده. السلام عليكم. واي جيسو كسو وحافي عن قفك هدو دغيسو نيو horta qofka haduu hadlaayo maya ninkan xogaa u iftiina saaxiibkii waqtigaan ku siinaya waan rabaa in waqtigaan ku siino su'aasha aan ku hay raacso way fiiri meesha xaqiiqi laga hadlo anaga dad islaam oo tukanaynahay oo muslimiina inaan been sheegna ma war meeshan iska dhaafay fiiri maalintii koowaad waxaa la soo sheegay waxaa la leeyahay kuraasta la soo dhejiyay 11 kursi musharaxiintu maxaa la leeyahay 3 bari gudooda ku shubeen Allah waxaa la rabay markii hore ergooyinkii odayaashii la kulmo 5 qof la soo dhisay lama dhisin waxaa la hormarsiiyay musharaxiinta la hormarsiiyay wallaahi billaahi
horjoogyaala loo horjoogtidii waa loo diiday dadkii maxaa la dhahay ilaalin lahaa oo bulshada rayidka ah dhageyso waxaan kuu sheegaa adiga waqtigaagaan ku sii waqtigayga war dhageyso sugaada waqtigayga sii dhageyso ninkan waxaa loo ballan qaaday ballantiisa ilaaha ka warqab inuu helayo in kale markuu soo waayana wada tashanayna aniga asaga markan waxaan kuu sheegaa korjoogta xataa waa loo diiday ayagoo banaanka taagan ana ark beesha caalamka xataa inay ka qayb qaadato waa loo diiday meeshaan indhaha yaan la iska qabsanayn meeshaan waxaa jiro maxaa la dhahay ordinary thief tuugaa jiro meeshaan oo ku soo talagalay inuu ku guulaysto doorashadan runtii waa ku talagal loogu talagalay waaye maxaa la dhahay markhaati ay leedahay dabagal haddii la sameeyo xataa waa la helaa lacagta meesha lagu shubo waa la helaa waqtiga la shubi waa la heli karaa aniga goobjooga ahaa dhageyso guddi khilaafaad hotel ay iska degiyihiin niyow meeshaan waxaa shaqaynayaan kuu sheegaa bahashaana shaqaynayso ninkan maxaa ka maqan niyow annaga markaan u tagnay oo wuxuu dhahay maxaa la dhahay 3,000 soo shub uu leeyahay uusan waxba ii qabananayn xuseen carab ciise wax u qaban lahaa markuu lacagta ka cunay guddi khilaafaad wax la dhahay ma jiro kulli waxay u shaqaynayaan guddiga khilaafaadka guddiga fiidka guddiga siidka waxay u shaqaynayaan maxaa la dhahay madaxtooyada maxaa la dhahay maxamed cabdullaahi farmaajo u shaqaynaya dhageyso waxaan kuu sheegaya maamul goboleedka aqalka sare waqtigii la dooranaya haddaa xasuusan tahay waxa way awoodda ayaga iska lahaa ilaan waxay matalayaan maamul goboleedkii tan laakiin ma lehen tan shacabka iska leh odayaasha dhaqanka iska leh haba yaraatee wax la sameeyey erga ma jirto oo seminaar loo qabtay odayaashii la rabay dhaqanka 3 qof laga keenay 2 qof oo bulshada rayidka ma la sameeynin 3 bari gudahooda waxaa la dhahay maxaa la dhahay lacagta hadii la shubi waayo aniga lacagta qofkii ugu horeeyay shubaha 22 bishan shubay dadaa 26 shubay oo dhaylanka ku dhacay ayagoo xamar soo jiro oo diyaarad ay waayeen hortooda waxaa ku ugu shubay nin wasiira ka shubay markaan yaa la iska indhisaabin meesha tuugnima jirto waxaa la rabay xataa in xariif macnaha waxyaalo oo hab wanaagsan oo xataa tuugnimadu waxaa jirta makasay midna ordinary thief midna political thief waay xataa political thief ahaan hadday u dhaqmi lahayn waa fiicnaan lahayd tuugnimo caadi oo dhace waay wallaahi been anaan kuu sheegaynin 21 qof maxaa la dhahay markay meesha tageen processka inay raacaan rabeen niyow dadkan waa qoliyihiina meeshan waxba lacagtiin ha shubina allah annaga dadkii shubaam ka mid ahayn marka aniga xanaaqna hadda uma jiro wixii ilaahay ii soo qoran ma waynay laakiin cadaaladda lagu tagrfalay dulmigaana ilaahay dad ka soo bixinayo waana arki doontaa markii waxa ku soo gabagabeynaa meeshan nina loo igmaday inuu maxaa la dhahay hawshan uu qabto doorashooyinkan uu qabto waa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waay hadduusan kala maxaa la dhahay arrintan uusan joojinin wadankan wixii ka dhac mas'uuliyadeed asaga qaadanaya wadankan inuu badbaadiyaa laga rabaa ra'iisul wasaare ma soo hadal qaaday dhawaan uu hadlay wuxuu aad u canaantay guddiga doorashada uu sheegay inay soo baxeen cabashooyin badan oo isdabamarin inay soo baxeen waa uu sheegay 16 qof hadda la soo saaray magaalada muqdisho sidee rabtay marka tallaabo noocee rabtay ra'iisul wasaare inuu qaato xafiiska ra'iisul wasaaraha in dad laga diray ahayd oo ilaaliyo beesha caalamka in loo ogolaaday ahayd bulshada rayidka gudoomiyaha aqoon-yahanada oo koonfurka waa loo diiday inay galaan meesha ay fiiriyaan markan waxaa waay meesha waxaa jiro war fiiri 45 daqiiqa waxaa lagu dhameynaa 101 ergo sanduuqi ay ku shubi leedahay 45 daqiiqa lagu dhameynaa isla markiis ay kaamirada u socoto TV oo koonfur galbeed uu leeyahay meesha joogo si u socoto waa la daminaa wax yar ka bacdi waxaa maqlaysaa hambal iyo hebel guuleystay tusaale ahaan aan ku sheegaa waa la soo baari karaa dadka malxiiska hal qof oo shahaado la siiyay kulli inta hadda tartantay oo ku guuleysatay shahaadooyinkooda markii la siinayo waa la soo saaray TV-da malxiis shahaado la siiyey meesha kuma jiro barkee ma buuxin shuruudihii shahaado dugsara ma haysto baasboor ma haysto waa nin maxaa la dhahay krishbooy ah waa nin darawal ah waa nin maxaa la dhahay jaariyad guri ka shaqaynayso oo loo soo labisi waay war annaga dad waaweynaan nahay meeshan waxa ka dhacay doorasho ma aha waxa waa tuugnima ka dhacday wadankan meeshu ku sii socdo wallaahi hadii sidii Afghanistan ay dhici weyso waxba hay weydiin xalay ugu dambeysay magaalada Baydhabo waxa ka socdo weerar aad u xun marka ma garat habeen maalin aan hadda intaan Baydhabo joogo doorashada ay socotay
waxa way wadanka in la difaaco la rabay dadkii oo go'doonsan abaar lagu jiro ay dhimanayaan gawaaridii raashinka loogu wada la gubaayo dameerkii raashin la gubaayo 4 sano 5 sano meeshan ku fadhina haba yaraatee waxaan qabanay male 5 sano waa qaylinay ani runaan ku sheegaa qaladaadka dawladdan ka qaylinay ani dawladda hal maalin ma raacay qaladkeeda iyo saxeeda waxay weakness ay ku tahay waxay strength ay ku tahay waa sheegay marka aniga waxaan ku sheegaa walaalow yaan la isdaalinin meesha kale ee hadda meesha idis waxaan rabaa su'aasha waa la doobay idis waxaan rabaa inta dadka kale hadda qaylina waxa way midowga musharaxiinta oo aad ogtahay in ay u tartamayaan xilka ugu sareeya dalka midowga musharaxiinta waxyaabaha hadda ay soo jeedinayaan waxay ahayd in doorashada hadda socota ay tahay mid xaaraana oo la joojiyo horeyna waxay ugu baaqayeen in doorashada ay bilaabato eedeen loo jeedinaya jirta midowga musharaxiinta oo ah in ay mararka qaar ay dhaliilayaan ama eedeen u jeedinayaan xildhibaanada qaar ay kuraasta ku soo baxa halka qaarkoodna ay u hambalyeynayaan markaas barbarigta labadaas markasoo isma diideyso in xildhibaanada qaarna la yidhahdo xalaal waaye xalaal ay ku soo baxeen oo ay midowga musharaxiinta dadka siyaasiyiinta ay u hambalyeeyaan dhanka kalena ay qaarkood ay yidhahdaan kursigan xaaraan waaye ninkan waa loo booba in la yidhahdo markaas barbarig ku samaysa arrintaas maxay kula muuqataa adigu aniga midowga musharaxiinta arrintooda oo hadda go'aamada ay soo saareen wax aniga aan qabo ahad markay waxay ka hadlayaan waxaan transparency waxa xaqiiq rasmi ah midna ka soo horjeesan see u aragtaa fiiri ayaga ma qofka asagay qusaysaa waxa laga yaabaa dad u shaqeynay fiiri dhageyso ani ma arkin qof oo nimanka hadda midowga musharaxiinta waxay soo saareen hadda waa arkeen waa wax aniga aan meesha aan ku soo arkay oo aniga lagu soo sameeyay waay aniga kowsi fiiri 7 jeer aan waxaan 7 kiiloomitir gudahood ku noqonayo si ay dhiidan tagaa waraaqda markaan warsado waxa la leeyahay maxaa la leeyahay guddiga doorashooyinka waraaq ka soo qaado meesha imaana haddaan la hadal oo aan isdagaalnay guddoomiyaha guddiga doorashada wuxuu dhahay la soo siiyo markii aan waraaqdii si ay dhiidaan soo qaatay markaasaan waxaan soo maxaa la leeyahay waxaan shubay lacagtii oo waxaan shubay maxaa la leeyahay 10,000 oo diiwaan gelina waxaan shubay tii kalaan shubay dhageys waxaan ku sheegay processkian soo raacay waraaqihii galabtian guddoonsiiyey waa isla 22 markaan guddoonsiiyey bari uu imaam shahaadada u dhahay markaasaan si frankly wuxuu ugu dhahay walaalow saaxiibkayga tahay meeshan waxba kuuma yaalo anaga liisan noo yaalo dhahay waa nin saaxiibkay saasay dhahay waa idris waa maasantahay aan siiyo professor shaafici xaqiiqda aniga aan ku hadlayo waa wax aniga lagu soo sameeyay waay saaxiibkayna inuu ku farxo ma aha oo anaga nagu jeesjeeso ma aha aniga weligay maxaa la leeyahay xaqan ka hadlayo dabcan waa dood waaye dhageys waran ku sheega waxa fiican si xaqiiq ah maxaa la leeyahay inuu u hadlaa fiican ninkan hadii ballan loo soo qaaday liiska aniga aan soo arkay xataa inuusan ku jirin aaminsan way waa maasantahay aan u yeero professor shaafici aan siiyo professor shaafici doodda idris iyo xildhibaan jeeso waa maqlaysay dabcan ama waa daawanaysaa doorashadan hadda socota markaad eegto saameyn noocee ay doorashooyinkan hadda bilowday ay ku yeelan karaan mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya caalamku wuxuu fiirinayaa doorashada saan u qabanno waliba waqtigan hadda petroolkii uu soo baxayo macdantii Soomaaliya sidii shirkadii UK ay Soomaaliya soo bandhigtay maabka oo dhanba in lagu aamini karo la maalgashan kala eegayaan marka image-ka aan caalamka tusno waxay noqonaysaa in hufnaan doorasho hadii la helo caalamku ugu soo dhiiranaya haddii kalena maahan farmaajo la taageero ama waxa laga sheego musharaxiinta way ka weynta waxan hadalka hadda weydiinayso oo ahaa musharaxiintu qaar oo hambalyeynayaan waana arrimaha khaladka ka mid oo jira dabcan ma farmaajo haddii uu wanaagsanaa siduu sheegay xildhibaanku shalay taageersanaa hadduu ama anigu aan shalay anigu waxaan ka mid ah marka hore taageersanaa hadduu dib ka xumaaday ma sii taageeraysto waxan waa mustaqbalkii Soomaaliya wax laga hadlayo ma ahan xildhibaankan iyo aniga ma ahan waa jiilkii Soomaaliya dhaxal inaan ka tagno waay haddana saas ay tahay ma aan inaan bias sameeyno musharaxiintu way wada saxsiin waa hadal wax aad u xun weeyaan markii la arko midow musharaxiin aad isku tilmaamto ninkii adig kaaga markii la soo saaray dad halkaas waxa laga garan karaa wixii shalay la soo sheegay oo ahaa 2006 ragii dawladda hore ku fashilmay ayaa maanta boodaya xaqiiqadu wax weeyaan hadalkaas oo aad muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed loo sheego siyaasiyiintana loo sheego oo maxaa ka dhalan kara doorashada Soomaaliya say ku dhacday yani saameynta yeelanayso marka waxa muhiim wax weeyaan ra'iisul wasaaruhu isaga mas'uuliyad buu qaaday isagaana xataa baajiyay dagaalkii dhici lahaa way waxaan dal dagaal ka soo baxay uma farxay dagaal waa inuu wax la sheegana maahan laakiin wax laga cabsanayo maadaama shalay baajiyay maanta ma baajin karee haddii caalamkuna ay arkaan anagoo is dagaalamayno cid maal gashanaysa lacagta saa u badan batroolka ma jirayso
waxaan dhihi lahaa in la siyara controla fiican lanna waa jiil hadda anagu waanu duqownay khalaas waxaanu ku sii soconnaa waqti dambe jiilkii soo baxayna waxba ma hayo marka shakhsi mucaarad iyo muxaafad in mustaqbalka dalka ay burburiyaan wax laga yaxyaxa waayo waa hadday damiir leeyihiin ra'iisul wasaaraha arrintiisa soo qaaday ra'iisul wasaaraha dhowr mar uu hadlay wuxuu sheegay ama lagu baraarujinayo ama lagu baaqay in doorashada la bilaabo ahaan labada waddan ugu horeeyay ee dhaqan waxay yiraahdeen doorashada haddaan la bilaabin ama saddex maamul goboleed qayb kamida hadaysan bilaabin wax dhaqaalaha ma bixinayn ra'iisul wasaaraha iyo guddiga doorashada go'aan ay qaateen iyo maamul goboleedyada doorashada la bilaabay hadda markay doorashada bilaabatayna walaac badan soo yeeray cabasho badan imaaday midowga musharaxiinta waxay ku baaqeen in doorashada gabi ahaanba la joojiyo haddii shalay marka lagu baaqayo in doorashada la bilaabo maantana la leeyahay doorashada hala joojiyo arrintaas loo qaateen ma tahay horta midowga musharaxiintu waa koox gooni ee musharaxiinta kale ka badan musharaxiin kaloo badan baa jirto ayaga political damage ama siyaasadooda ku qancin shacabka Soomaaliyeed oo inta ogaada inta yaro jasiirad joogta kaliya ma ahan hadalka aad sheegaysid oo ra'iisul wasaaraha waa sax wax laga naxayna ahayd beesha caalamku inay tiraahdo lacagta xildhibaanku bixinaya ha lagu bixiyo oo shacabka Soomaaliyeed maqlayaan inay yiraahdaan saddex meelood inay meel soo bax wax laga naxa waay waxyaalahaas kale markay dhacdo waa inaan sax kameena laakiin ra'iisul wasaaraha waxa laga rabaa oo shakhsi ahaan aan ku waafaqsan xildhibaanka iyo mucaaradka laftooda hadal yani waa in la sameeyo doorashadii ay sii socoto annaguna aan aragno wixii haddaan u sameeyo intaan tago meel aan qof soo dilo intaan corruption soo sameeyo haddaan wixii na tus haddii la yidhahdo wixii ay socdaan waxaan dalkanaga ku waxaan waa dalkanagii madaxweyne farmaajo labadii saaxiiba waxaa laga hadlaya waxa weeye waa labada isaga u dhow laba maamul u dhoween marka ra'iisul wasaaraha waxaa laga rabaa ficil qanciya mucaaradka musharaxiinta oo dhanba shacabka Soomaaliyeed oo doonaya iyo beesha caalamka oo maalgashtay dalkan oo doonaya wax dawlad dib looma noqonayo waxa la doonaya dawladnimo isaga waxa laga rabaa ficil aan hadal kaliya ahayn hadduu laakiin hadla oo waxba qaban karin hadayna maamul goboleedu wax ka maqleen waa inuu beesha caalamka u sheego Soomaaliland u sheega haddii uu awood waayay oo awoodii loo dhiibay maamul goboleedyada ay go'aansadeen sidaan ka baqayo dawladdu waxa ma haysan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare markay iskhilaafeen meesha waxa ka soo baxay fursad ay maamul goboleedyadu wixii dhan ay qaataan guddiga doorashada xataa ay warkooda diidaan marka haday waxaas jirtay inuu shacabku sheego waay haddii kale laakiin intuu khilaaf jiro oo khilaafka la xalilin haddana doorasho kale loo sii socdo waa laga fiican yahay arrintan daaramin jeeson siinaya dood waa dhegeysanaysa dabcan kuma laabanayno wixii hore saaxiibadeen ay ka hadleen baaqi hore loogu baaqay in doorashada la bilaabo degdeg loogu bilaabo oo maamul goboleed ay bilaabaan haddana waxa soo baxaysa maadaama walaaci uu soo baxay in doorashadii la joojiyo ama la hakiyo si wax qaladaadka jira loo saxo arrintaas loo qaateen ma taas leedahay adigu waa maalinta qays saaxiibaday waxaan ugu fikri duwanahay wax la joojiyo doorashadan waa bilaabatay tariin hadduu dhaqaaqo waa inuu isku istaagaa meel maxadda ah duur cidla iskama meel booseja ama maxadda in isku istaaga moogi ma ku istaagay maxadada doorashadan waxa way dhamaad doorashadan maxadadeeda iyo stopkeeda waxa way dhamaad wax kastana waa meel wax lagu xalliyo la sameeyay cidii tabasho qabto guddiga khilaafaadka ha tagto haddii guddiga khilaafaadka lama aaminayo la yiraahdo oo midowgii musharaxiinta hadaladoodii la duriyo la yiri kooda markay soo baxaan iyaga ay taageersan yihiin way hambaliyayaan haddii muxuu ahay dawladda federaalka gacan saar lala ama lagu tuhmaayo ama madaxweynayaasha dawlad goboleedyada lagu agtumaayo inay soo baxaan awlaa la wata la leeyahay sida hadda aniga saaxiibkay igu tiimaraynaya meel sidaa camal ay tahay waxaa weeye xal noqon mayso xalka waxaa weeye annaga aadan aan nahay bilo aadan ilaahay os untiyaan nahay wax way qaldami karaan dadka aan wax u dhiibanin waa dad muxuu ahay iizaan oo ay wax ka qaldami karaan waxna ay u saxmi karaan sideedana waxay wax ka qaldamaan qofka inuu wax sameeyo isku dayo ay wax ka qaldamaan hadday wax qaldan jiraan guddiga khilaafaadka la xiriiriyaan laga xishoon dacwadaada meelaad gartaada kula baxdo hal sameeyo ma aha Somali Cable inay noqoto guddiga khilaafaadka ay noqoto ka doonno sax ma halka shay oo muhiimka waxa weeye oo dalkan is u baahan yahay doorashadan oo socoto iyo
wixii naga hadlaysanoo kor aan ku kor hagaajino waay sidee loo sixi karaa qaladaadka hadda jira tusaale haddaana qaladba iima muuqdo qalad jara iima muuqdo laakiin hadduu jiro oo dad dacu qaba ay jiraan guddigii khilaafaadka fiiri maxaa loo sameeyey guddiga khilaafaadka maxaa loo sameeyey siid maxaa loo sameeyey fiid waxaa loo sameeyey waxaasoo dhan in lagu kala baxo oo ay wax hagaajiyaan haddii aad soo martay fiid aad soo martay oo aad siid aad joogtid ama siid aad ka soo gudubtay oo fiid joogtay fiid inay wax saxday isku daydo hadday fiid iyo siid ay wax isku taageeraan waxaa kuu bannaan in guddiga khilaafaadka aad tagtid haddii laakiin wax oo dhanba systemka oo dhanba lagu kalsoonaan waayo lagama yaabo waxaas in muxuu ahaa ay stop gareeyaan dad ku kalsoonaa jira dad waxaa jira ku qanacsan muxuu ahay qofkii wax soo waayeyba haddii uu afka iska furto waxaad xal noqon mayso meel oo dacwadiisa geysan karo oo isku eedbixi karo oo isku qancin karo oo lagu qancin karo ayaa jirta midna ogow dowladnimada xildhibaan kalex maaha way bilaaranta dowladda fayska iyo wejiga yaan laga delin hore aan u soconno waa wax yaroo annaga intaas 20 sano ugu dambaysay doorasho dadban aan ku soo dhoodhoobanayn waa haddii maanta intaan wax soo waaya aan wejiga dhiiqo ugu tuuro anigu bay iga halaabaysaa maanta haddaan wax waayo biri muxuu ahay ayaan wax heli karaa tusaalaan kuu soo qaadanahay madaxweynaha muxuu ahay south west koonfur galbeed cabdicasiis 2012 dadkii wax waaye oo doorashada dadban wax ku waaye oo ka mid ahaa ma garad 2016 waa soo galay maalin dhaweeta hadalkiisa aad markuu hadlayay aadaan aan ugu riyaaqay sababtoo wuxuu yiri war shalay wixii aad samaynayseen wax ka fiican in la sameeyo mug wax ka xun lama samaynayo ha lagu qanco waxa socdo wixii shalay aan sameeyay fiir haddii aan ka qarqaro aan ka cabsado wixii shalay soo dhacay haddii ka qarqaro ama sidii shalay aan ku soo baxay haddaan ka cabsoodo tiyo kale ma kugu dhacdaa toogadaada waay haddaan iraado weligay wax ma sixi karo waxaa ku soo celcelisay khaladaad badan iyo muuqdaan tareenka waa socdaa meel fiicanna boosteejadu waa inuu ku istaagaa tiray gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha hore baarlamaanka oo gudoomiyahaaga ahaa maxamed sheekh Cusmaan Jawaari dhawaan muqdisho ku soo laabtay wuxuu ka mid yahay dadka loo diiday warqadda musharaxnimada wuxuuna sheegay in si cad loogu sheegay in kursigan qofka la rabo oo isaga la doonay ma waxaa leedahay gudoomiyihii baarlamaanka oo maxamed xasan Jawaari oo og tahay maartay xeelku dalka ka soo qabtay mas'uuliyaddu soo qabtay waxa uu sheegay waxba kama jiraan oo khaladka uu tabanay waxa kama jiraan miyaa waa ku sheegay waxaan ku yiri qalad waa dhici karaa qaladka dhacay laakiin in ummadda loo faahfaahiyo loo sheego ma laga yaaba haddii ka waran maadaama 4.5 ay waxay yihiin hadday meeshaas wax ka qaldan yihiin ka waran waxaa la rabaa gudoomiye Jawaari waa nin aqoon-yahana waa nin dalkan wax badan u soo shaqeeyay cumrigiisa kala 3 meelood 2 meel u soo shaqeeyay waa nin muxuu ahay experience leh guddi khilaafaadka u bandhigto fiir ra'iisul wasaaraha ka hadlay arintiisa guddigii oo fiida ka hadlay oo fiidiyo isiida isku khilaafay waxa soo dhan waa ogahay haddii qalad uu jiro marka waxa meesha lagu kala bixi karo maxkamadda ah tii maxkamaddii dastuuriga fiir maxkamaddii dastuuriga nooma dhisno heer federaal ayaa joojiyay tartankaas kii maamul goboleedkana sidna way fasaxeen marka yaa loo dacwoonayaa guddigii khilaafaadka oo ka madax banaan labadaba guddigii khilaafaadka oo labadaba ka madax banaanaa jira kaasaa la geynaa dacwada waaya hadda sida kuu muuqata foodo inay tahay doorashada ma aaminsan tahay maya ma aaminsan sidee marka u wada shaqayn karaan guddiga doorashadii heer federaal iyo heer dowlad goboleed hadiiba amar aysan kala qaadin waxaa dhamooba laba loo kala dhigay inay isnaqdiyaan waa xalay waxaan arkay ra'iisul wasaaraha oo dhahay guddi ka hadlay guddiga kale kama hadli karo inay waxa dhamooba 3 guddi waaye guddiga idhigayso guddiga fiid oo muxuu ahay federaalka ah iyo guddiga siid oo ah deegaan doorashadii dowlad goboleedyada iyo guddiga khilaafaadka
saddexdaas waxa loo sameeyey inay issaxaan waay ma aha inay muxuu ahaay ay wax walba isku taageeraan inay issaxaan waay sababta loo sameeyey golo baarlamaan golo xakuumad golo garsoor oo ay dawladdeena saddexda hay-adood ay ku tiirsan tahay waxaa loo sameeyey inay issaxaan waay aan fahanno haddii la rabo wax walba yesman in laga dhigo hal guddi basaaba la samayn lahay guddigii oo siid ayaa fasaxay kursigii oo guddoomiye jawaari oo u diiday bahalki guddigii fiit ayaa ka hadlay oo yiri waa joojinaynaa waa isnaqdiyeen ma aragtay waxaa la rabaa inay kula baxaan guddigii oo muxuu ahay khilaafaadka waa maasantahay Amin Jeso Idris Dr dabcan dooda Amin Jeso waa dhageysanaysaa waa la socotay arrintan guddiga doorashada oo hadda khilaafa ka yimid gaar ahaan arrintii la xiriirtay kursigii guddoomiye jawaari dhawaan la qabanayay guddiga federaalka way joojiyeen kii maamul goboleedkana iyadana way fasaxeen arrintaas waxaa leeyahay waxaa qaybka ama gadaal ka riixaya madaxda maamul goboleedyada amaba aan iraahdo madaxweynaha hadda xilka haya koonfur galbeed iyo maaragtay guddigiisa doorashada isbarbaryacaas muuqda adiga naftirkaaga muku saameeyey aad iyo aad waxaan ku sheegaa horta waa la iska warqabaa meeshan fiid iyo siid iyo khilaafaadka waa iska warqabaan dhegeysi waxaan kuu sheegaa waxa waaye in bunoonigan meel walba loo raaca macnaha loo gimaa la rabaa cayaaraa socota meesha ninkan saaxiibkeyga 21 sano meeshan ku fadhiyey horta waa nin khibrad leh waaye waxay ugu fadhiyaan saaxiibadiisa asagoo ku lamida aan nahay 20 sano see meeshan ku fadhisaan waxay dhaheen anaga weligeena dawladda kursiga nin ku fadhiyaan raacnaay dhaheen ummad wax uma qabtaan waxa waaye kursigaas inay ku soo laabtaan ay rabaan aniga horta 40 sano ay ugu horeysay dhageyso aniga 40 sano waa ka anaa ku wada hadalka iga dhageysaaday aniga 40 sano horta 5 sano ay ugu horeysay 5 sano aan ku fadhiyaa aniga faawan u shaqeynay lacag ka badan tan aan qaadanay baydhow dhan ninka oo South West u fadhiyaa ahaa tolka ii yimid shaqadeyda dhan aan u kansalay waa fahandino hal shay ma bixin aniga markaas tolka ay watay waxa registration waxa ayaga iga bixiyay hadda aniga waaba ka shilaayay hadda maxaa la lahaay dhibaatooyinkan iyo maxaa la lahaay oo baarlamaankan iyo nin xakamaysan aan noqday hadda caawa faraxsanahay laakiin waxaan rabaa xaq inaan ka hadlo waay marka niman aniga maxaa la lahaay asxaabnahay ay waxay dhahaan maalin walba maxaa dawladda u naqdidaa oo wax ugu sheegtaa miyaadan rabin inaan soo noqonin ay dhahay horta tiya hadda meesha ay socotaa saaxiibkeyna saas waa inuu amaano waa inuu soo noqdo rabaa inuu xasaanadan haysto aniga xasaanad war dhageysi aniga ma rabi aniga xaq ka hadlo waay maxaa meesha aan u yimid inaan tulkay wax u sameeyo waay dhageysi deegaanka aniga aan ka yimid laba jaamacadood aan ka sameeyay ku dhawaad 600 oo arday aan bees lacag ku soo saaray afar jaamacad waxa la dhigi jiray Abba Jubba University to waxa la leeyahay Khayra University waay maskaxan ku keenay ceeladan qoday ma garat dad oo maxaa la leeyahay oo dhibaataysan maalin walba ilaa hadda biyo dhaamina wada dhageysi ayaga lagalama tashanin baa ergin la keenay iyo odayaal la keenay iyo waxaas ma jiraan war meesha waxa shaqeynay guddiga siidka iyo khilaafaadka iyo asheegaysa iyo federaalku meesha baydhow joog ayaga aruurinay dadki waxa waaye hatta waxa laga yaabaa qof qabiilkiisa in la keeno qof kale la keeno waxaan lagu maqaalaha in dhar badan la soo gaday qofka 3 shaar 4 shaar oo kale loo soo gaday macawiisi iyo koofiyaal odayaal meesha la fadhiisanayo hatta qaarkood hadii la tiri 100 ma fadhiso marka meeshan waxa waaye wax tuugnima jiro lacaga shaqeynayso lacagtaas waxa waaye xildhibaanada lagu soo saaraya wadanka loo horseedooya in maxaa la leeyahay afshantii sano hadda wax haba yaraatay la soo qabtay aan soo qaban male amnigan wax laga qabanin waxa la dhaafi waayay meeshii oo dawladii hore ay joogtay la dhaafi waayay maalin walba waxa dhacay qaraxid oo arkaysa wadooyinka xiran dadkii baahan xoolihii waa dhamaadeen maxay qabatay dawladda markaan waxaan ku sheegaa walaalow meeshan waxa jiro inaan shaqeysanoy tiimkiisna u shaqeynayaan guddigan oo la kala dirin ya arintaan oo la joojinin anaga cadeemaha oo rasmi oo nin xuquuqdiisa processkii soo raacay lacagtii shubtay ani jawaari waa loo diiray kaligeena maaha dada waxa la dhahay horta intaysan waxba shubanin niyow qofaan wadanaa ma isu soo sharxi kartid xildhibaano badan waay ayaga dhawaaqi doona laakiin waxaan ku sheegaa dad raba inay kuraastan fadhiyaan oo daacad u ah dawladda qaarkood waa soo noqdeen meeshan hadda walaalkayga asaga dadkaas uu kamid yahay
marka hadalkayga waxaan kusoo kuubaa xaqiiqda ha la sheego waxa jira ha la sheego danta taada ha fiirinin danta shacabka fiiri way gabagabadii doodeenna ayaan soo gaarnay daawadayaal toos waxaad nagala socotaan TV-ga Somali Cable waxaana caawa aan falanqeynaynay walaaca laga qabo doorashooyinka dalka iminka ka bilowday qaar kamida maamul goboleedyada dalka waxaana barnaamijka caawa martin uga ah xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka sidoo kale Idris Cabdi Dhakhtar ayaa qayb ka ah dooda oo xildhibaanada golaha shacabka kamid ah iyo sidoo kale Professor Shaafici Yuusuf Cumar gabagabadii soo gaarnay Professor dooda waa dhageysanaysay dabcan arinta doorashada walaac badan ha hareeyo laakiin wali waxaad moodaa in hore loo socdo oo doorashada la qabanayo caawo kaliya xildhibaanadii doorashadii maamul goboleedka maamulka Somaliland ayaa la soo saaray gobolada waqooyi kuraastooda ayaa la soo saaray in doorashada ay dhici doonto walina walaaci way jiraan siyaasiyiintan walaac badan bay muujinayaan muxuu kula muuqdaa xalka horta kolley waan aragnaa masuq waan aragnaa waxaan dhihi lahaa keliya Soomaali dhibkeedu waa faqri shaqo la'aan sanaan la'aan amni darre kolley ba dad wax dhacaysiin oo laga joogay nasiib darro waan ka xumay in anagoo joogna aanu aragno waxna aan ka qaban karin xildhibaanku wuxuu yiri way soconaysaa tareenku wuu soconayaa waxaan dhihi lahaa xildhibaanada ugu roon oo dalka wuxuu taraya la soo saaro laana markaan saa dhahayo waxa weeyaan qabiil walba hadii yani kuwii hore waan ogeyn 2016 labadoodu waa isku waafaqeen caalamka dhan uu ogyahay corruption uu jiray laakiin haddii xildhibaanku ugu fiican la soo saaro dawlad fiican baa noo imaanaysa taasaan dhihi lahaa waayo dad badan waxaa meesha ka reebay lacag baa la bixinayaa hadda uu sheegay lacag baa intaa leeg baa iga baxday qaarba baa awoodaan haddii laakiin la waayey in la sameeyo xildhibaanku wanaagsan markaan saas leeyahay Soomaaliya xalkeedu waxa weeyaan in teknolojiyada Soomaaliya u baahan tahay oo khayraadka waafaqsan in dibadda laga keeno khubaro la keeno dalku 5 sano isku bedelayaa laakiin waa bisharti haddii xildhibaan damiir leh oo dalka ugu wanaagsan beel walba ninka ugu wanaagsan haddii la keeno dalku waxba isku bedeli karo laakiin tan hadda hadduu tareenka socday aan waxba kama qaban karo farmaasada Professor aan si xildhibaan Daahir Amiin Jeeso gabagabadii aan soo gaarnay barnaamijka muxuu kula muuqdaa xalka walaac waa jira doorashadii wali way socotaa xalka muxuu kula muuqdaa adiga xalka waxaa iigu muuqdaa horta marka ugu horeyso ilaahay waxaan ka baryayaa in siduu professorka sheegay xildhibaano dalkan badbaadin kara inay noo soo baxaan hal mid madaxda Soomaaliyeed ama mucaarad ha ahaadaan ama muxaafad ha ahaadaan ayaan kula dardaarmayaa doorasho dadban waa doorasho dadban in la aamino dadkii aan u egmanay ama ha noqoto gudiyada saddexda gudi ama ha noqoto madaxweynayaashii dawlad goboleedyada ee aan u xil saaranay deegaankooda lagu qabanayo doorashada in la aamino oo iyagadaas aan ku kalsoonaano waxay noo soo saaraan aan si duuduub ah aan u qaadan midna TV-ga Somali Cable baan leeyahay oo aan kula dardaarmaya boqolaal ayaa wax soo weyn doonto oo muxuu ahaa ku soo hangoobi doonto kursiga ay raadinayeen dadka iyaga in waraysigooda aadna ku degdegin sababtoo qofka kuleyl baa haayo waa hantiya laga yaabo in energy hal sano aan waxaan ku jirnaa campaign aan ku jirnaa weyn adiga soo weysan soo hesho ku marqaadayna maya ha imarta qaadan markii maya sameeya ani hadda ilaa wax soo helay Allahu wa'ala laakiin waxaan leeyahay fiir markaan soo nasto ay doorashada dhamaato oo kuleelkaas idaayo imaanta qaada maxaa fiir taariikh ahaan wax ii weydii laakiin aniga oo wili dhididkayga asdaay anoo wiliba dhididkayga asdaay haddaad imarta qaadiin booskii waxaad galaysiin muxuu ahaa guddiga khilaafaadka waxaan idin moodayaa interview guddiga khilaafaadka interview iga qaadaya ay idin moodaya wax walbaan sheegaya
marka xildhibaan baasha ay cabasho tahay inta cabasho meel loogu talagalayaa jira hadda adiga musharaxa tahay tiifiyada cabasho looguma talagal tiifiyada qofna uu soo waayay waa jooga hamay waa mahadsan tahay waxaa la heli karaa mid dhaliilsan oo muxuu ahay ninkaas booskiisa matala laakiin ninkii qofkii oo xanaaqsan hadda saaxiibkay aniga saaxiibaan nahay dhowr mar uu i duray sax ma aha haddii shakhsi oo muxuu ahay kul asna ahaadneen ma samayseen mar walba qarannimada waa shayga ugu muhiimsan oo u baahan ama wax hayso ama wax haysan in la taageero u baahan dawlad waxaan nahay curduna oo dhacdhacayso inaan annaga sii jilaafeyno oo aan muxuu ahay sida hadda professor Shaafici uu sheegay markii xildhibaankii i taageersan uu soo baxana aan sacbiyo markii kooni kala taageersan oo uu soo baxana aan ka qoomeeyo aan saxaafadda isugu yeero fiir waxa soo baxay oo ognahay xisbiyada mucaaradka dadka ku jiray hadda koonfur galbeed ay xataa ka soo baxeen ayaa ka soo baxeen سلام على عليو كمدة شيء المذوب كمدة شيء محمد نورا كمدة حزبي ودير له كثير كثير سنوات لكن هل كان ولو داري ميا صاحب كواي من الجوج أبو من الجوج هل شيء ربا مركز جدي خلافات أنا وهذا ما عيسى مشي هذا شيء waxaan rabaa marka halka sheeyon raba inaan soo gabagabay ninka la yiraahdo Idris Takhtar hadii booskiisa gabar lagu عندنا واحد من أنا شيء منو كذا مثلا نجيب والله كنا وما فيها من كلام ينتج كذا ما ستعمل والله بالله بدك هو أتكاتي أنت تقول إذا عمل نشان قرقي أنا جاك نسكن باي وين جاك أبو أكر جيكي جيكي بابا تقول بدك بابا آخر جيبك سوى ما صوت عادي ما صوت أدين أنت وراح مجرتها لا أنا هو كرها وقرآن بتجرها لفتو كيف لقى عنسو لقى قرآن ما يبتجرها لا حاجة عن ترى أنا إيديسي يا أبو كم عبدي واحد كجرا كان والله بتوشوا أولي أنا بتوشوا هذا معها والله بكونا كجرا هاي نودنا خرابة نسوبح ما بصون كلام بنجنكي ورم كوشيجا أنت كبح لما موسكين أنت كبحها لما روتي أنكينا روتي بس من هتيلي تحكيليو بس أني الصومالي أنا بيجوا جوا أوينوا وهي موسكان منو يا كان كيتني واي كيتني واي الحمد لله تبع جو غريبين باي ولا أنت لما دام موضوع ميسكا يكون سوقي
miiskan waa la isuubi afkuubi ma ku suubi ninaa isuubi miiskan waa kasi miiskan waxa waaye halnuga sigaaweeye kowda halnugnu waxa waaye shardi ciidanka alkhariifa maskiya marka miiskan waxa waaye anaa suubi hamkasino qudaasna waa kana waxaa kuu suubi miiskan meeqa besa ugasha لم يركن يسقط بخل إنجودين بس الآن على الصوبيا بس لا وعملوا صوبي ضمن كسبتنا على وقت فيها بس ما فيني بعلق ما جاونا مثلا بروح سكون صار فيني بحاول يا معتنا ما يكون صوبي يا ميسك بس ميسك يكون صوبي يا معنا وعلى لوكيس له نوع لا عمي قاطع ده عليه قاطع ميسك أنا نساك بعد يوم صوبي يا ميسك وعوايا تدق برجع لك سيا ما كسيا هنا ساعة بعد وابرنت هاي هذا ما دقيقة لك أنا أقول سوا من ذا حاسوب بس عادي ما صوبني معناه وحوايا إنجنير ممكن منين كسيمال معناه وفي فيها مقطع ما كنت إنجنير كفيري وخيار فاهم كأنه وحوايا ميسك هذا واقع xildhibaan Idris Cabdi Dhakhtar sidoo kale waxa dooda nagala qayb galay professor Shaafici Yusuf Umar waxaana caawa barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee TV-ga Somali Cable aan ku falanqaynay doorashooyinka dalka ee ka bilowday qaar kamid ah maamul goboleedyada dalka annagoona eegaynay walaaca laga qabay doorashadaasi iyo waliba saameynta doorashadan ay ku yeelan karaan mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya iyo sidoo kale suurtagalnimada in doorashooyinkan hadda bilowday ee qallaas siyaasadeed ay sababi karaan martida kala duwan oo dooda ka qayb galay